وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي متى مد دالي ودنتي سكات كاري ودلتي وحكرية وبرنامج اللي دلني وتجيب الصومالي كيف ومثلا قالين وغير قاتو بورنتا يدلنتا دلكين هذا waa maxay doorka looga baahan yahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed haddaanan annagu qashinka iska xaaqin haddaanan annagu jidadka nadiifin haddaanan annagu guryaheena rinjiyeysan haddaanan annagu soo celin bilicdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa samaxay doorka looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada aan tahriibayday oo rabay inay Yurub u tahriibaan oo meel kale u tahriibi jiray oo badaha ku dhima jiray inay wadankooda fahmaan muhiimadda uu leeyahay oo ay arkaan wadankoodii qurxoon oo bilicdiisa ay dhalinyaro soo celiday kadibna ay wadankii wax ka quruxsadaan ayaguna ay joogaan sidee baan ku higsan karnaa himilooyinkeena ciidankeena inuu noo tababaran yahay ciidankeena in aan dhaqaalaysano aan siino wax u baahan yihiin mushaharadooda kow ka tahay caafimaadkooda kii dhintana caruurtiisa aan ka warqabno muwaadinka Soomaaliyeed adigu doorkeebaad ka ciyaari kartaa horumarinta wadankeena hadda khamiis kasta caaday noo tahay aan nadiifino wadankeena wax kastana aan barno waxa la yiraahdaa iska wax qabso haddaba haddii aad tahay qof dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya goobtu ku furan tahay adigaana marti ka noqon kara barnaamijka Daldis qalab walba jimcaha la soo xiriir waa Daldis at Somali Cable كندتشي يا قونتو تدكو كأفلحانو تابع تعليم تاريخ dadka joogtaan oo naga daawanaysaan baa ku soo dhawaada barnaamijkeeni Daldis oo galab walba jimcaha xilliyeedana kala aan hada idin soo barin jirnay barnaamijkan oo ah barnaamij lagu boorinayo laguna dhiirinayo inay dadku dalkooda dhistaan ayaan waxaan ku soo qaadanaa xilli walba oo jimcaha shakhsiyaad aan isleenahay alalaha danta dadka iyo dalka ay ka shaqeeyeen dadka ay horumar gaarsiiyeen waa nagii niri war ma tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya galabta ayaan ku eegi doonaa shakhsiyaad noocaas oo ugu horeeyo oo galabta ku soo qaadan doona barnaamijka waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir iyo wax qabadkoodii ayaan barnaamij ku soo qaadan doonaa barnaamijka waxaa marti noogu ah afhayeenka gobolka Banaadir Master Cabdifataax aad baan ku salaamayaa mudane xalale ku soo dhaw barnaamijka aad baad u baahantahay saaxiib Abubakar Cawaale Qaadiid aragaagu waan ma abshir soo dhawow gobolka Banaadir taariikh ahaan marka la fiiriyo waa xuduntii ama waxa la oran karaa waa wadnihii ummadda Soomaaliyeed caqabado badan buu soo maray waxaad moodaa ama aan ognahay oo dhabba ahba gobolku inuu hadda horumar hiigsanayo bal nooga maran dowladdan hadda jirta gudoomiyahan hadda jooga maxaa idin qabsoomay maxaa caqabada ah bal nooga waran bismillaahi raxmaani raxiim aad baan u salaamayaa dhammaan daawadayaasha TV-ga Somali Cable iyo barnaamijka Daldis iyo adigoo saaxiibkay Abubakar Cawaale Qaadiid adigu laftaada xamar ku soo dhawow xamar afayaan baan ka hayo dee lagu soo dhaweeyo weeyaan waxqabadka maamulka gobolka Banaadir oo hogaamiye u yahay gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ma filayo muddada kooban uu joogo inaan hal program ku soo koobi karno laakiin uu noqdooyin markaas aan u arkay inay muhiim yihiin in la sheego wixii la qabtay oo markii sanad guurada sanadka la gaaro ayuun baa laga hadli doonaa waxqabadka guud ahaantiis laakiin maadaama aan ka hadlayno barnaamij dhowr daqiiqa ah inaan soo koobno ayaan isku dayaynaa insha Allah haddii la hayidmo gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed markii la magacaabay oo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho isla markii wuxuu galay hawlihii waayo nin wuxuu ahaa yaqaana maamulka tijaabsan oo fahamsan wax walba markaas ayuu gudoomiye Taabid ahaa ugu horeyntii wuxuu isbedel ku sameeyay guud ahaan degmooyinka iyo gudoonka sare
gobolka banaadir ayaa isbeddel lagu sameeyey iyadoo kaalin mug leh oo waxqabadkii aan dhihi karo waa kii ugu weynaa ay ka qaateen gabdhaha soomaaliyeed ay ka heleen kaalinta koobaad waayo inay guddoonka sare laba qof oo dumarihii ay ka qayb gashaahi wax caadiya may ahayn iyadaasna waa way noqotay oo xogayihii guud ee gobolka banaadir waa gabar zubayda maxamed mukhtaar la yihahdaa gudoomiye ku-xigeenkii maamulkii maaliyaddana iyana waxa weeye waa gabar maluuka dheere cabdulqaadir xaaji dheere ayaa iyana la yihahdaa sidoo kale markuu magacaabay isaga iyo wasiirka arrimaha gudahaba gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir 17 degmo marka laga reebo 2 degmo oo markaas dee aan la bedelin ee soo noqotay 15 degmo oo ka soo hartay 5 ka midii waxay ahaayeen haddana gabdho awalna ma dhici jirin waxaa aad iyo aad u ahaa jirtay inay hal gabar ay ka dhex noqoto ama aysan kasoo dhex noqonba ayay ahaan jirtay iyana waxqabad aad iyo aad muhiimad gaara u leh ayuu ahaa intaa kadib maamul wanaagga iyo dee in awoodda gobolka banaadir la daadajiyo oo hoos la geeyo oo waaxaha iyo ku-xigeenada iyo laamaha tabeelaha iyo dariska laga shaqaysiiyo iyana waxyaabaha aad iyo aad loo qabtay ayay ka mid ahayd waxyaabaha kale oo muhimkaa oo aad iyo aad muhimka waxa weeye bixinta shaqaalaha mushaarkooda oo qodob aad iyo aad aniga muhim iigu ah ayuu ahaa tan iyo maalinkii taabid yimid 28 mushaarka ay dowladda hoose la bixiyaa shaqaalahooda mana dhici jirin awal xaqiiqa markaan ka hadlo waxaa laga yaabaa in maayarka kale noo iman jiray iyadoo dhowr bilood ay maqan tahay yani duruufo kasta iyo soobaad kasta ha ku maqnaato intaas waxay ahayd wejigii koobaad oo aad iyo aad loo qabtay waxaynu galnay dhismihii waddanka waxaa la dhagax dhigay waddooyin fara badan oo ugu horreysay waddadan jidkan soddonka la yihahdo ama baarwax iyo balaagsii ilaa iyo fagax taga oo 12 kilomitira ayaa la dhagax dhigay maanta waa gabagabo wuxuu marayaa area fagax uu ku dhow yahay waa gabagabo waana jidka ugu weyn magaaladan oo inta aragtay degmooyinka isku xirawaya waxaa la dhagax dhigay oo laami ah hadda ah jidka kasoo taga aerobortka school bulusiya la yihahdo ama general kahiye ilaa iyo isbitaalka la yihahdo isbitaalka yardameli oo madaxweynaha jamhuuriyadda u maro waxa weeye iyana laami ayaa laga dhigay oo maanta waa laami waxaa isgoyska uu dhagax dhigay guddoomiyuhu isgoyska degmada kaaran la yidhaahdo ilaa iyo xaliimo hinte maanta waa laami muuqaalada dabcan waxaad ka arki karnood shashada injineerkeena ayaan ka codsanaya inuu qaar ka mida muuqaaladaas laamiyadaas la furay uu noo soo gudbiyo ما شاء الله والأوجي وحيبه اللي قبتي أو أي آدي آد أي وجمده هاي ما كل صدق عندك وأنت عصير اسمه لامية دا سوي علنتي النظافة دا لامه أمان كود الله شقي معمول كيل يسكو حري دقموين كيو فرن قضي تذكيه وذا الشقين أي كده حبورنتي ضلني رفرشة وحقبة التاجن ودن كيلو مقالة اللو ديبي waxa haweenkiyo empower lagu sameeyo la dhiirigelin loo sameeyay dhalinyaradii degmooyinka ka shaqeynayay dhalinyarada gobolka la yiraahdo oo aan weligood mushaar qaadan mushaar loo bilaabay shaqaalihii dawladda hoose mushaarkoodii helay yani wax hadda aan hal program soo koobi karno cawaale ma aha inta kadib waxaaba kale ugu muhiimsan waxa weeye markii musiibooyinka dhaceen gudoomiyuhu wuxuu xirtay dhaxda u xirtay 14 Oktoobar ugu dhibka badneed musiibo qaran إلا يا هذا وكم وقتها شعوران قدوميها قبل كبنات ومقال لا غير كسيو على مدي بقى كحرا قدوميها وأفضل 8 أكتوبر كقرن تاعي أنت دعوة عنتي gargaari doodii in dibadda loo qaado oo kala shaqeynayay kaalinta ugu muhiimsan oo lahaa gurmadka dhalinyarada degmooyinkii la abaabulay in la isku gurmaday dhiigga in la shubay oo asagu dhiig meeray sida madaxweynaha jamhuuriyadda oo dhiigga oo u meeray dhiig loo meeray musiibadii markay dhacday
dadkii ku baaba'ay tusaale qoyskii laba carruur ka dhimatay isla habeennimadii uu gurigooda ugu tegay waxa weeye gabadhii jaamicadoo dhimatay waa u tegay familkoodii ilmihii nin lahaa 29 carruura gurigiisaan ugu tagnay oon ku booqanay oo waxyaabihii loogu talagalay oo kaalmadii guddoonka yani la gaarsiinayay yani ma xisaabi karo 17 degmo uusan tegin uusan qoys ugu tegin marna maysa marka waxyaabaha la qabtay muddadaas kooban xaqiiqatan aad iyo aad dabcan waad la socotaan waana qiraynaa haddaan nahay bahda Soomaali Cable waxqabadkii guddoomiyaha adiga laftigaagu daawanaya ma ku nooshahay magaalada Muqdisho ma daawanaysaa barnaamijka maxaad xasuusataa ama ka warqabtaa waad nala soo wadaagi kartaa maxaa kalood ku dari lahayd maxaad fariin u dari lahayd bogaadin lahayd guddoomiyaha waad nagala soo xiriiri kartaa bartayda Facebook at official Somali Cable waad hadda barnaamijka si toos uga daawanaysaan sidoo kale you can tweet dhinaca Twitterka @Somali Cable gobolka Banaadir hashtag waad soo gudbin kartaan fikirkiina guddoomiyaha waxyaalaha cajiibka oo yani dad badan qulubtood soo jiitay waxaa ka mid ah daryeelka danyarta isagoon u kala aabayeelin qofkii xanuunsan la tacaalistiisii dibad u qaadistiisii arrintaas soo lama odhan karo waa tallaabo ku dayasho mudan oo madax badan u baahantay inay uga dayato aad baad u mahadsantaa cawaale arrinta qodob muhiim ay tahay caawa in aad uga hadlaan rabay qadiida ku saabsan dadkii loo gurmaday oo dibadda loo qaaday waxaa ugu horreeyey maxamed yare wiil la yidhaahdo oo wadnihiisu daloolay oo waddanka waxba looga qaban waayey guddoomiyuhu ilaahay khayr ha siiyo waa la soo gaarsiiyey masajka kadibna waxa weeye waa kii qaaday ofiisihii iyo baasaboorkii iyo khadamaadkii lagu talagalaba asaga iyo aabihiis waa ka dibadda u qaaday alxamdulillah waa ka qalliin soo galay kuna guulaystay alxamdulillah maanta aad iyo aad u wanaagsan waxaa ku xigtay oo muhiim ka ahayd gabadhii yarta ahayd Zainab oo dhalinyarada ahayd oo dhabarka yani ay uga soo baxay dhabarku oo awgeeyay istaalka Digfeer iyana la qalay iyana wax muhiim ah ayay ahayd arrinta ku saabsan wiil kaloo la yiraahdo isna Maxamed la yiraahdo oo asna dibadda loo qaaday way jirtay gabadhii Faiza ahayd oo dhibaatada ku soo gaartay ninkii askariga ahaa dhibaatada u geystay magaalada wax looga qaban waayay waa Faiza loo qaaday Turkiga oo habeen hore daawanaynay iyada oo lugadeeda ku socota waxa weeye oo xubinteedii iyo dad nolosheediina dib u soo noqotay taasoo kale habeen dhaweed waxaan kala hadlayay guddoomiyaha wiil taasoo kale asaguna xanuunsan oo in dibadda loo qaado u baahan iyo intuu ka fikirayay isbitaalada gudaha geeyey dadka kala hadlayay gabar wariyaa hadda oo xanuunsanaysay oo qalci ku dhaawacantay wuxuu amray in Digfeer la geeyo yani waxyaabahaasoo dhan dee waa ka damqasho oo ka damqanayay guddoomiye Taabit Cabdi dadkiisa ka damqanayay oo waajib saaran oo gutay muhiimka qodobka kale oo muhiimka waxa weeye cayaarihii la qabtay oo magaalada lagu qabtay hadday ahaan lahayd kuwii degmooyinka oo habeen la qabtay waa la awal marra fi taariikh in habeen madow cayaar lagu qabto magaalada Muqdisho 20,000 people ay ka soo qayb galaan iyana wax oo you can't imagine oo waxay ahayd inaba caadi ayay ahayd tii maamulka gobolada dalka ka dhacaysay oo gobolka Banaadir oo gobolada ka qayb galayeen iyana waxay ahayd waxyaabihii aad lagu faani karo in Muqdisho habeen cayaar lagu dheelo wax aad iyo aad u cajiiba ayay ahayd intaas iyo in ka badan ayaa guddoomiye Taabit muddada kooban oo joogo u qabsoontay waan isleeyahay waa inta maskaxdayda ku jirtay weeyaan oo aan goobjooga u ahaa iyo in kaloo badan oo guddoomiyuhu oo qabtay ayaa jirta aad iyo aad baa mahadsan tahay waanu sii wadi doonaa wax hal barnaamij iyo laba lagu soo koobi karo ma aha haddii aad barnaamijka nagala socotid sidoo kale waxaad toos usoo wici kartaa stuudiyahayaga iyadigoo fikirkaaga soo gudbinaya insha allah ka xumahay barta Facebook cilad farsamo awgeed waan kusoo noqon doonaa insha allah sidoo kale you can tweet fikirkaaga iyo taladaada waxaad kusoo gudbin kartaa barta Twitterka @Somali Cable hashtag gobolka Banaadir insha allah aad buu mahadsan yahay waxaan kaloo aan leenahay adiga laftigaagu haddii aad tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya barnaamijku wuu kuu furaya la soo xiriir barnaamijka Daldis waa daldis@somalicable.tv galabta waxaanu ku eegaynaa horumarka gobolka Banaadir waxaa laga yaabaa weega soo socda
inay adiga aada noqotid qofka lagu soo casuumayo waxyaalaha cajiibka aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ahaa ciyaarihii gobolada runtii waxay ahayd haddii laga fiiriyo dhinaca amniga magaalada kalsoonidii dadka soo noqotay 20,000 qof oo istaadiyo isugu yimid dadkii waxaan ka mid ahaa sanadkan nasiibka u yeeshay oo goobjooga ka ahaa waxay kordhisay isdhexgalkii bulshada waxay kordhisay kalsoonidii dadku qabteen amniga cayaar walbana wuu joogay ilaa dhammaadkii ilaa uu casho u sameeyey gobolladii kala diray arrintaasi yani waxaa la odhan karaa guddoomiyuhu shaqadiisii mid kasii weyn gobolladii oo dhan inuu isu keeno dalka saameyn intee lahay bay waa mahadsantaha cawaale arrinta ku saabsan ciyaarihii degmooyinka mid waxay mid inaga noo gaara oo degmooyinka gobolka banaadir 17 degmo ciyaarihii loo qabanayay taas looma kala harin guddoomiyuhu wuxuu ahaa xidiga dhex taagan buu ahaa 17 degmo handal garinayay tii maamul goboleedadana wuxuu ahaa dee aabbaha magaaladan maayarka aan gobanarka caasimadda u ahaa martigeliyey soo dhaweeyey hoteelada siiyey wasaaradda ka caawinayay sidii shaqadaasi ayuu qabsoomi lahayd isagoo gobolku yahay tartame oo dee ka mid a cayaaraha ka mid a ayuu haddana maayarku wuxuu qaadanayay kaalintigiisa dhexdhexaadnimo in magaaladan dee noqoto magaalo habeenna lagu cayaari karo maalin lagu cayaari karo oo amniyan la isku halayn karo in wax badan la qabto laamaha amniga gobolka ayaa heegan ahaa siday waajibkaas qaran ay u qaadan lahaayeen dhalinyarada degmooyinka ayaa iyaguna dee xorriyad u haystay inay taageeraan hadda markaas kooxdii ayagu ay rabaan inay markaa ay taageeraan oo zaxmadda laysma dhehaynin meesha ayaa waxay tahay waa gobolka banaadir maalintii ay dheelayaan waa yani xaadir bay ahayd oo shacabku iyo dhalinyaraduba qaybtooda ayay taageerada ka ahaayeen gobolka banaadirna dee maalintiisa aad iyo aad bay taageerayaashu ay u iman jireen marka waxyaabahaas oo dhan wax aad iyo aad anagu aan ugu faraxsannahay ayay xaqiiqatan ay ahayd oo sharaf ahayd oo caasimadan oo gobolka banaadira oo soomaali leedahay oo caasimad soomaaliyeeda waxa weeye wax fiican bay ahayd qodobka muhiimka ah oo aan ka tegay waxa weeye caasimadda soomaaliyeed in la soomaaliyeeyo lafteedu waxay ahayd sharaf iyo guul yani guddoomiye taabit oo lahaa bay ahayd waayo 17 degmo oo gobolka banaadir laba guddoomiye ka mid yihiin waxay ahaayeen guddoomiyaal oo guddoomiye kusoo daray inay noqdaan soomaali ah oo waxa weeye inay xaqna ole inay ay xamar maamulaan ayay ahayd oo caasimaddii wuxuu ka dhigay caasimad soomaaliyeed meeshii awal ay ka ahaan jirtay dee xaandaab go-an ay ka ahaan jirtay maanta caasimaddu waa caasimad soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan waayo waxay caasimad markaan noqosho caasimad ummadda dhan bay ka dhexaysaa weeyaan qof gaar u lihi haba yaraatee ma jiro caasimadda in la soomaaliyeeyo lafteedu waxay ahayd guul fikra isagoo u keen oo fikir isagu leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay sideebaad haddaba waa aragtaa adiga laftigaagu waad soo comment garayn kartaa barteeda facebook we are live at official somali cable sidoo kale waad tweet garayn kartaa hashtag at gobolka banaadir guddoomiye taabit gul baan u rajaynaynaa waxqabadkiisii mid la qarin kara ma aha dhinaca maatada u gargaarka dhinac walba markaan ka fiirino runtii tallaabooyin waaweyn oo la dhiiran karo bal qaaday arrintani ma isleedahay waxay dhiiri gelinaysaa mustaqbalka in dhalinyarada la dhaho hadda guddoomiye gobolka hadduu intaan qabtay dhalinyaro kale ha loo dhiibay xilal waaweyn oo culculus ma dhiiri gelinaysaa isleedahay horta waa mahadsan tahay cawaale waxaan aaminsanahay dhalinyarada in ay awoodda qabtaan sharaf weeye wax fiicanna waaye sababta waxa waaye taabidan aad tusaale ugu filan tusaale xaqiiqatan ugu filan taabid anigu taad ma aqoonin waxaan isku baranay gobolka banaadir weeyaan xaqiiqa markaan ka hadlo maalinkou yimid ilaa haddana waa wada shaqaynayni waa nin saaxiib dhow la ah shaqada saaxiib la ah ee aan shaksiga saaxiib la ah haddaa isqabataan shaqaad isku qabanaysaa wax kaloo isugu imaanaysaa haba yaraatee ma jirto caawa 8 saac haddaad wacdo telefoonkiisu waa on waa ka jawaabaya shaqada marnaba shaqan yani mujaamala ee guddoomiyuhu kama galayo oo wuxuu u taagan yahay habeen iyo maalin uu shaqada qabto in marka dhalinyarada asaga la mid yahay empowerin helaan
oo ay kaalintooda helaana aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa oo annagu oo yani dhalinyaradii magaalada aan ku baratay kamid ahay aan jaanisada aan helno si aan waxaan qaban karno aan usii tijaabino waxyaabaha aan xasuusto oo aan marnaba ilaaweyn waxaa kamid ah habeenada kamid a ayuu wuxuu booqday aabe isagoo curyaana labadiisii caruuraheedee ugu waaweyneyd ilmihiisa ay qarixi ku dhintay waxaan xasuustaa guddoomiyuhu asigoo ilmeynaya oo aabihii curyaanka ahaa ee ilmihiisii labada ahaa ay dhinteen salliga kula fadhiya baan xasuustaa xaqiiqatan waxyaabaha aanay ilaawi karin bay ay cawaala ka mid tahay ilaahay waxaan uga baryayaa guddoomiye taabit inuu khayr badanna siiyo howlihiisana uu u fududeeyo iyo gudashada waajibaadkiisa qaranna oo u sahlo dhinaca kale waxyaala waxaa jirta cajiiba oo ay ka mid tahay habeenkii hadda sanadka cusub magaaladan joogay guddoomiye taabit saddexdii habeennimo in la hortago inuu dhex tago ciidamada furunta ku jira يعني سو لما أرن كرو قدومي هدي الرضا لكن أمني إنه سجوا مهم أرنت اسمه واحد لنا قدومي وانا اللي يريه مين كاس قدومي أنا ولا السعودية هبين كاس لبيه طبعا كي استقبل دحين رقني وحنا أدني فرونت لاين كعيد بدأ تشوجا دقموين كا سد وحنا قبل لونا سين كدر وقعنتي صدقوا قيبي راشن بسل ويعيدنا كون لهاي يبيه يعبي لهاي وحنا تجني كحضة oo ay degan yihiin meel kaxda ka fog ciidanka ay degan yihiin oo bar control ku taalo xoosh baan marnay halkaasi waxaan tagnay Dar es Salaam ayaan isla habeenkii tagnay 10 saac ku dhawaad habeenniman suuqa xoolaha maslax aynu tagnay ka soo noqonay 12 saac habeennimo ayuu gudoomiyuhu dardaaran iyo oo baala saxaafada oo aan wada ka ahay gobolka ka shaqeysa oo kula hadlay xarunta gobolka Banaadir وعاد ياد لا ياب لها يا هاي ما لها لقى يا أبو ضدكوا إني فانتاسية كلا كتير أسيقو عيدا كأيو لا تشوقي وفرنتا أيو عيدا كبلا تشري يانا وحاول حيوها أنا أركيني قول يا شرف يا عز بيا أدياد أداد ما صنتهاي فرنتي هالي برنامج اللي قمسوا كوبي كرو برنامج كان دلسنا وحبورينا يا مر والبا شخصي والبا أما وسيرها هذا أما شخصي كان عصتها هذا أما شخصي قدومي قبل أما قدومي دقمو إن شاء الله وحنا بورين دونا ترتن إنه أبورمه نينكي وهي دلكا ونجي صوب نيجينا نينكي كله وخلافات يمرون حسن عدن كذا جرينا إن شاء الله الغدك تلفك يا فيرنا قف وريه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعد ماشي كسهل ليس ولا المقعد وشينا حسن علي وكسو هلا قبل كجدا جارهان دولة وصوماليا هاي سولو فكر كاي هذا عدكم وان كله وهي واكو سلامة يا عدي نك عديقة اللي هذا عبد الفتاح عمر حالنا وسلامة يا أفيان كقولك بنادر أنت أسكدب وحربة إن أنكه الله برنامج كان قلبس أها وحاول يعني برنامج كان هورت أنت بدن ووضع وأنا وحلا بقادية وياه runtii waxaan soo dhaweynayaa maamulka gobolka Banaadir horumarka ay ka wadaan caasimadda Soomaaliya intaas kadib caasimadda waxaan la xaqiri karin inuu ka jiro horumar ballaaran oo sabab u yahay mudane Taabit marka waxaan leeyahay gudoomiye Taabit waa nin dhalinyaro ah mustaqbal fiican hiigsanayo runtii caasimadda say ahaan jirtay iyo hadda farqi weyn oo u dhaxeeya waa maragma doonto weeyaan aad iyo aad baa mahadsanta hay cabta waxaa kaaga baxay oo mahadsan yahay saaxiibkay wiilka dhalinyarada ah oo bogaadinaya dee gudoomiye Taabit ma filayo gudoomiyaha gobolka Banaadir muddada yarta ay joogo oo maayarka iyo governorka ka yahay magaaladan iyo intuu qabtay magaaladan iyo inta hamigiisa iyo maankiisa ku jirtaahay ma filayo wax aan xaqiiqatan koobi karno inay tahay laakiin waxaan leenahay kaliya qof walba ee mas'uul ah ee muwaadina waa inuu wax uu ku soo kordhiya magaalada oo ku soo kordhiya Taabit Cabdi Maxamed hab dhaqankiisa oo ama ula dhaqmayo shaqaalaha ama ula dhaqmayo madaxda kale inteeda kale waxa aad iyo aad
loo jeclaystay weeyaan waxaan rajaynaynaa intuu joogo in magaaladana ay meel u socoto bilic ahaan dhismo ahaan horumar ahaan amni ahaan isdhexgal ahaan intaba inay meel u socotaan insha allah rajaynaynaa hamigiisa iyo yacni malafkiisa fog iyo missionka uu rabo inuu magaalada ku hogaamiyo uu soo bandhigay guddoomiyuhuna waxaan rajaynaynaa caasimad la tartantaa caasimadaha dunida oo dhan inay noqoto insha allah dilaayo insha allah wax badan baan ka hadalnay waxqabad dabcan hal barnaamij iyo laba laguma soo koobi karo dhinaca kale haddii la fiiriyo guddoomiye hore aad la soo shaqaysay muddo badan baad hawshan ku jirtay adiga laftigaaga waxaa lagugu tilmaamaa nin aan gaban oo meeshii qarax ka dhacay iyo meeshii dagaalku taagan yahay taagan oo nimankaa nabadiidka ku dhiirrado carab adag waxaad is leedahay waa qaldameen maxaa la sixi karaa maxaad is leedahay alla ilaahay sidaan ma ahana sidaan ay ku fiicnayd awala maasanid waa su-aal aad u qiimo badan oo aad iyo aad ay muhiim tahay in laga jawaabo aniga 4 abriil 2014 ayaa noqday agaasinka warbaahinta gobolka banaadir muddo hadda ku dhawaad 2 sano afayaan baan ahay aniga dabeecadahayga waxaa ka mid ah magaaladan in qof walba intii awooddiisa naagta inuu magaaladan ugu heliyo soomaalinimada ugu heliyo cadowgana kula dagaalamo anigu maahi kan xabadda rida ee aagga gala ee fronta gala maahi laakiin afkayga iyo maskaxdayda iyo maankayga iyo hadalka xigmadaysan ee idhaahdo ayaan cadowga aan ku wiiqaa aad baan uga hadlaa cadowga siba yani shabaabka nimanka la yidhaahdo aad iyo aad baan cawaala aan uga hadlaa because ninkii inta baabuur miino kusoo xidhay 500 oo qof dilay waa cadow ummadda soomaaliyeed weeyaan in laga hadlaa mooyaane in asaga ummadda u qarxinayo loo qarxiyo ayaa saxa waayo dhiigga muslimka ayay banaysteen hadda kore waxaa idhi cali dheere hala toogtabane mari weriye laga dileen cadowga oo aan habeennimo u tagay ilaahay baan kugu dhaariyey nimaan dembi gelin waxba ka galabsan maxaad u hadashay loo dilay ka war waxaad la dhegaysan karo xaqiiqatan maya ummad inta miino lagu dhuftay ilaah baan ugu dhawaanina la yidhi ka war wax caqligu bini aadam oo ogol yahay ma waxaan idhi bullet proof maaha dhagxa kama samaysna waa in la dilaa waa in xanuunka aynu annagana dareensiinayaan midka xanuun badan la dareensiiya baa idhi weli waa ku celinaya waxaan leeyahay shabaab waa weak aaday daciif yihiin xaqiiqa weeyaan wallaahi baan ku dhaartay midoobay u baahan yihiin in lagu yaaco dhammaantood gacmaha laga xidho waa xaqiiqo weeyaan marka waxba aan ka hadlaayo goob walbeen tago anugu qarax ka dhaco qofka ugu horreeyo tagaan anugu goobta tagaan sababtan tagaaya waxa weeye dhallinyarada warbaahintu war bay raadisaa waxaa laga yaabaa inay inta iga hormaraan ay dhibaata ku gaarta meesha waxba aniga inaan taga keenaysa ayagii aan aqaanaa laamihii ammaankana waan aqaanaa dantu waxay ugu qasbaysaa marka inaan noqdo qofka u horreeya ee qaraxa taga aan noqdo si aysan isugu dhicin waayo waxaa dhacda in qaraxii weriye asagoo sawir ka qaadaya oo qarax kala dhaco ee weriyihii meesha dhibaata ku gaarto anugu ma sii daayo weriye waxaan idhahdaa weriye ka joog ha aadin ilaa la kilir garaya meesha halkaaga taagno sawirka zoom ku qaad waxaad rabto ku qaad cid ku xadgudbaysa male cid ku celinaysa male mayd ha duubin sawir qaldan ha qaadin yani uurada iyo waxaad sawir ka qaadaya ka qaad maxaan idhahdaa walaalow naftaadana badbaadi nafta dadka kalena badbaadi taasaa keenaysa inaan goob kasta u tago kadibna newska markaas laamaha ammaanku soo gudbiyaan oo isku raacaan laamaha ammaanka oo wasiirka warfafintuna soo confirm garayo ayuunbaa media aan la wadaaga aad iyo aad baad mahadsantihiin bahda barta facebook weriye faarax yemani xamani wuxuu yidhi guul gobolka banaadir maxamed xuseen oo barta facebook isagoo nagala soo xiriiray wuxuu yidhi guuleyso guddoomiye taabit cabdirasaaq maxamed cabdi maasha allah buu yidhi waa barnaamij fiican aad ayaad dhammaantiin mahadsantihiin waad kusoo koobi kartaa fariintaada oo kooban adigoo aan ka tegayn magacaaga iyo meesha aad joogto barteeda facebook barta commentiga waad soo dhigi kartaa
sidoo kale haddii aad adiga laftigaagu tahay mid dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya waa daldhis at somali cable tv jimcaha dambe adiga ayaa laga yaabaa inaad barnaamijka marti ku tahay barnaamijka daldhis iyo tv-ga somali cable annagoo ka qayb qaadanayna dib u dhiska dalka ayaanu bilaabaynaa barnaamijkan tartanka ah oo lagu soo bandhigayo wasaaraddii waxqabatay wasiirkii waxqabtay guddoomiyihii waxqabtay aanu banaanka usoo dhigi karno sidoo kalena kalama gaban mayno oo barnaamijka falanqeynta siyaasadda iyo wariye xasan cadde ayaa u diyaara dhinaca dhaliilaha iyo toosh afarqaada in lagu ifiyo meeshii kale oo wax ka qaldan yihiin laakiin annagu reer daldhis haddaan nahay waxaan leenahay haddaad tahay wasiir dadaalay guddoomiye dadaalay barnaamijkan waa kugu soo dhaweyneynaa waxaana u tartansiinaynaa shaksiga sanadka oo ilaa hadda ay u muuqato guddoomiye taabid inuu hogaaminayo ما شاء الله قدوميه عبد الفتاح شقada markuu hogaamiyuhu u dhiiran yahay oo shaqadii u taagan yahay oo daacad u yahay saameyn intee la eg bay ku leedahay dhalinyaradii ka hooseysay agaasimayaashii iyo agaasimo waaxeedkii iyo guddoomiyaashii degmada iyo guddoomiyihiiba hadduusan nasanayn saameyn intee la eg bay ku leedahay annaguna ma hoyano mana harsano waayo meel maayarkaagii taagan yahay guddoomiyahaadii gobolka uu taagan yahay fadhi kuma yaallo waad soconaysaa waxaad qaban kartaad qabanaysaa annagu shaqan saaxiib u nahay dee haddaanan shaqayn baa waa wax si kala noqonayna waaba xanuunsanaynaa marka asaguna dee waa hormuud oo asigiyaa na hagaya yani tillaabooyinka iyo talooyinka iyo tawjiihooyinka na siinaya annaguna dee kaalintaynaynu qaadanaynaa waa laysku wada xiran yahay 17 degmo anagoo la soo shaqeeyey kuwa ka horreeyaan la soo shaqeeyey guddoomiyaal maayarro kale la soo shaqeeyey qaabka maanta la isugu xiran yahay wax aad iyo aad cajiib u ah oo fiican oo hore u socod leh waan aaminsanahay haddii la sii wado in meel fiican loo hoyanayo oo reerka meel naqa loo hoyanayo aad iyo aad baan aan ugu kalsoonahay waxqabadka guddoomiye taabidna dee waan barogarab horaan u sheegay aan lagu idlayn karin markii sanad guuradiisa la gaadho oo sanad idlaysto ayuun baan insha allahu aan soo bandhigi doonaa waxaan uga mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka kaalinta haweenka iyo dhalinyarada uu siiyey wax aad iyo aad u fiican weeyaan iyo sida uu marnaba marka uu hadlayo uusan fadhiisanayna kursiga booska la yidhaahdo ee isaga loo diyaariyo ma fadhiisto guddoomiyuhu dadka u dhex galaa isuu fadhiistaa meesha ugu dambaysa oo shacabka la fadhiista waa dhaqan nagu cusub weeyaan oo aad iyo aad cajiib u ah waaye aad iyo aad baan guddoomiye wayna kula qaadaynaa wayna kula wadaynaa meelan cidda kula geeyaynaa insha allah dhinaca kale gabagabadii barnaamijka la soo gaaray waxyaalaha gobolka banaadir hadda riixayo oo ajandooyinka idinkugu jirto waxaa kamid ah soo celinta bilicda magaalada muqdisho bilicda iyo magaalada muqdisho haddii laga hadlana waxaa jirta arrin ku cayaarta bilicda oo dhibaato u geysata waa jaadka meeshaan u socda garantay bahalkaas in magaalada laga saaro oo meel gooniya loo sameeyo oo suuq banaankaa la saaro gobolka banaadir waxaad arrintaa uga ku diidantiin waan ogaa inaad su-aashaad weydiinayso because magacaadu waa qaadiid anigu waxaan ahay qaadiid weligay ma cunin balwad wax balwada weligay ma cunin adduunkan qaadka u nacabahay haddana dee ciidanka ilaaliya qaadku cuna qaadku waa balaayo waa musiibo waa mustahlik weeyaan oo u yahay dhaqaalaha waddanka u yahay haddana dee uun siyaasadaad kale oo aniga iyo inta igu xeeranba dee naga madax banaan baa iskale mas-uuliyaddaas anigu waxaan qaba aragti ahaan dad badan baa ku nool business badan baa ku jira ummad badan baa ku ganacsata waxa weeye laga yaaba in qoys badan oo ay ku nool yihiin oo ay nolol ka helaan ayagoo haddii si kale u raadiyaan heli lahaa ay noloshaas heli lahaa laakiin waxyaabaha anu aan qaba waxa weeye dabcan ciddii ka mas-uulka ah ayaa lagala hadli doonaa oo qaadka ku saabsan laakiin anu waxaan qabaa in inta meel gooniya la geeyo qaadka meel gooniya lagu cuno meel gooniya lagu iibiyo
inuu magaalada nadaafadeeda iyo quruxdeeda oo ka baxsan yahay aad iyo aad baan aan usoo dhaweyn lahaa laakiin waxaa xusid mudan xanna way jirta waxaa la yidhahdaa odaygii abubakar cawaala qaadiidaha asaga qudhiisu qaadka waa cunaha waxay soo qoreen facebookay ku soo qoreen war ninkan waa imtixaan bay dheen habeenkiina waa cunaa maalinkiina qaadku la dagaalama waa dacyadaha waxay ka mid tahay walaalaha qaadka cunay ka mid tahay ragga waa is haynaa laakiin qaad waxay ugu dambeysay markii meesha anoo cunay laga dhex qaaday 2004 waa cuni jiray bilaaya iga raacday waa sheeko dheer oo buug ka qornay laakiin caawa waxaan u dabaaldegaynaa oonu soo dhaweynaynaa waxqabadkii gobolka banaadir insha allah waxaan rajaynaynaa arrintaas qaadka laftigeeda bilicda magaalada aad baan kala qayb bay ka tahay maalin hore anoo laamiga marka almagaraba maraya ayaa nin dukaan laa oo carwo weyn leh baa hadda magaciisa sheega ma rabo intuu soo qaaday qashin oo laamiga bartankiisa uu soo dhigay waan istaagay waxaan ka degay gaarigaygi qashinkii baan soo qaaday waxaan ku celiyey carwadiisii aad u xanuunjinaysaa in qashin uu iska saaray oo laamigii ummadda ka dhexeeya u geeyey in lagu soo celiyo carwadii lagu soo celiyo intaan furfuray bacdii baan iska faallaha haddana u saaray qashinka baakadihii iyo wixii ku jiray baan iska faallaha u saaray uu xanaaqay ninkii wuxuu igu yidhi waryaa maxaad sidaan u yeelaysaa hal saalan ku weydiin karaa baan kor halkan waxaan ku waa dukaankaaga waa carwadaada kambani baa jira nadaafadda ka shaqeeya kaa qaadaya gaari baa jira ka shaqeeya nadaafadda aad saari karto u dhiibi karto iriddaa intaad dhigtaad asturi kartaa waad qaadi kartaa waad gey kartaa inaad laamigii ummadda ka dhexeeyey ee hooyo 70 jirihii xaaqdo habeen iyo maalin aad dhigto miyayna ku xanuunjinayn baan kor waayo ay ku xanuunjinaysaa iska faallahaaga iyo dee miid kursigiisi kan haddaan ku fadhiyo buu ku fadhiyey waa u saaray qashinka intaa markaan ku uruni waa mahadsan tahay waan qaldamay waad iga saxan tahay qashinkayga waan aruursanayaa maanta laga bilaabana dee ma dhacaysan laamiga dhigo marka qof walba waxaana idhaahdo adigu isisaar mas-uuliyad ah in aad nadiifiso magaalada ilaahay adood waxaan rajaynaynaa in wax badan nadaafadda iska bedesho oo magaalada nadaafadda haddana way fiican tahay insha allah waana hagaagi doontaa ilahay insha allah insha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan joognaa waxaanu leenahay mar kale haddii aad doonaysid barnaamijka inaad marti ka noqoto waa daldhis at somali cable tv hashtagga waad soo wadi kartaan waa gobolka banaadir hashtagga ah ama sidoo kale waxaad kusoo diri kartaan fariimihiina barteeda facebook aad ayaan ugu mahad celinayaa afhayeenka gabagabadii barnaamijkan lasoo gaaray dabcan waqtigu saadaashu waa iska socotaa waqtigu waa isbedelayaa ka gobolka banaadir ahaan maxaad hiigsanaysaan maxaad jeclaan lahaydeen inaad aragtaan guddoomiyaha si uu u taabageliyo fishinkiisa ama aragtidiisa dheer oo gobolka banaadir la maagaya waa mahadsan tahay sanad baa soo dhow wixii la qaban karay sanadkan 2017 ee dhammaaday waa la qabtay sanadkii cusub baa la galay aragti fog iyo waxa weeye ayaanu leenahay waynu soo bandhigaynaa hadda waxa oo la koobi kara maaha aragtidaasna guddoonka sare gobolka ayaa ku dhawaaqi doona ayagoon baana ka sugaynaa cawaale waa mahadsantay su-aasheeda ugu dambeysa dhinaca amniga dadaal badan baa jira waxaa yaraaday ilaahay mahadiis iyo runtii juhdi badan oo ciidamada amniga iyo gobolka banaadir iska kaashateen maxaad hiigsanaysaan iyada laftigeeda ammaanka dhankiisa laamaha ammaanka gobolka banaadir iyo guddoonka sare gobolka aad isugu xiran yihiin maalinba isbuucla waxaa jira kulanka amniga gobolka la yidhaahdo oo guddoonka amniga gandan ay galaan taliyaasha ciidamada iyo guddoonka sare gobolka banaadir isku xirnaan baa jirta iyo kala amar qaadasho nabad sugidda iyo booliska gobolka la shaqeeya guddoonka oo taladiisa iyo amarkiisa qaata degmooyinka ayaa xukuma yani taliyaasha ciidamada degmooyinka oo sida booliska iyo nabad sugidda yani degmooyinka xukuma isku xir baa jira xuuraan baa jira oo dharcad ah oo magaalada ka shaqeeya ilaa 3 xukumo dhalinyaraha magaalada joogta oo la shaqaalaysiiyey oo ayagu aan amni shaqo ku lahayn laakiin dee shaqooyinkooda magaalada ka qabta waxyaabahaas oo dhan marka la isku biirbiiriyey waxaa imanaysa wacyigelintii la sameeyey oo dee laga wacyigeliyey cadowga inay ay soo sheegaan shacabka soo sheegaan in ay amnigii maanta alxamdulilah caalamiin oo meel fiican oo maraayo dhawaana aan rajaynayno inay caasimaddu noqoto in mas-uul walba ay keligii gaari qaabto insha allah dilaayo insha allah waana meesha la hiigsanaya runtii
waxaana la oran karaa improvement badan ama meel dheer baa laga yimid waqti badanna waa lasoo gudbay waxyaaba badan waa qabsoomeen guul ayaanu rajeynayna dhammaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya shaqaalaha gobolka banaadir oo dhan hooyooyinka dhulka xaaqa kuwa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhammaantiin waxaanu idin leenahay shaqo fiican ayaa dadka iyo dalka u haysaan halkaas kasii wada afhayeen aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa inoo wiiga dambe iyo goor kale iyo goob kale wasiiradana waxaan leenahay haddaad adiga laftigaagu tahay wasiir dadaalay oo hawl qaran qabtay insha allah barnaamijka waa kugu soo dhaweyn doonaa wasiirkii musuq maasuq iyo waxaas lagu helayana barnaamijka falaqaynta iyo xasan caddaanu ka adeejin doonaa insha allah intaan kanoo kale ku kulmi doono waa aniga iyo farsamo yaqaan cayn laawe maxamed yar oo dhinaca farsamada magaalada london noo jooga dhammaantayo meelaad joogtaan waxaan idin leenahay dhista dhulkiina uquba qaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu